الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وحكوسه برباري قرية والد كيسا وجوي وهالكاسكو وينادي. أبو بكر رضي الله عنه dhaqamo wuxuu lahaa aad u wanaagsan islaamka ka hor. xilli islaamka ka hor carabta dhexdooda uu ku faafay khamri cabida, waalida, dhibaatada, adab xumida iyo wax la mid ah. laakiinse asigu wuxuu ahaa qof magaalada sharaf iyo wanaag iyo qiimo ku leh. waxaa maalin la weydiiyey, weligaaga miyaad cabtay khamriga jaahiliyada ka hor, yani xilliga jaahiliyada islaamka ka hor? wuxuu dhahay, waxay tacuudu billaah, ilaahay baan ka magan galay. waxaan ahaa jira mid ilaalinayo shakhsiyadiisa, ilaalinaya ragtinimadiisa, ilaalinaya qof ahaantiisa, nacaya fasaadka, dhaqan xumida, xadgudubka iyo dhibaatada dadka uu ku sameynayo. wuxuu aaminsanaa waxay tahay khamriga iyo mukhadiraadka inay ka mid tahay waxyaabaha sharaftiisa hoos u dhigaya, karaamadiisa, ragtinimadiisa hoos u dhigaya. lidaalika mar walba wuxuu ahaa mid ilaaliya karaamadiisa. ogow, abubakar muusan doonin radia allaahu canhu meesha uu ku dhashanayo, sida uu u ekaana ilaahay baa dooray, alladii khalaqaka fasawaaka facadalak. laakiin wuxuu doortay habdhaqankiisa, dhaqankiisa wanaagsan asigaa doortay. wuu u shaqaystay, wuu ku dadaalay, wuu ka adkaaday nafsadiisa. lidaalika wuxuu noqday qof dhaqan wanaagsan, dadku ay jecel yihiin, naftiisa ka adag, ilaahayna subxaanahu wa tacaala dhaqamo wan wanaagsan qurux badan siiyey. nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay, arxamu ummatii biummatii abubakar. wuxuu tilmaamay qofka ugu naxariista badan ummaddan inuu yahay abubakar. muxuu u naxariis badannaa waayey? sababtoo ah wuxuu lahaa qalbi jilacsan, dhaqan iyo dabeecad degan, dad kalena ay jeclaysan jireen. wuxuu arkay bilaal oo la cadaabayo, cadaabta ay ku socoto, la dhibaateynayo. wuu adkeysan waayey, wuu damqaday, wuu baxay, wuu xoreeyey, wuu gatay. ilaahay subxaana dartiis ayuu u sameeyey. camir bin fuhayra hadduu arkay maalin kala dane asigoo la cadaabaya, la dhibaateynaya, wuu adkeysan waayey, wuu damqaday. masaakiinta iyo fuqarada dadka wax haysanin laga taagta daran yahay, wuxuu u ahaa garab. markaasi markuu gatay kadib, ilaahay dartiis ayuu u xoreeyey. aabihiisa wuu la yaabay, dadka way la yaabeen. ninkan addoommada gadanaya, aan ka faa'iidaysanaynin, haddana ilaahay dartiisa u xoreynaya muxuu ahaa? marka la weydiiyey, aabihiis uu weydiiyey, maxaa sidaas u sameynaysaa? wuxuu dhahay, ilaahay agtiis baan wanaag kaga raadsanaya. wasayujannabu hal atqaa الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وحو سمينيا إلهي درتيسا، إلهينا وحو بلان قاضي غالي أهانشيهيسا رضي الله عنه وأرضاه. رقم ديسا وحاكمدها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إن قنعين كرا قفك ولا هدلو هدلو hadalkiisa waa ku qancaysaa. hadduu ganacsanayo, ganacsigiisa yani si fiican baad adiga ugu gadanaysaa. sababtoo ah wuxuu yaqaanaa sida dadka lala hadlo, waqtiga loola hadlo iyo habka wanaagsan qof walbo da'diisa ay tahay loola hadlo. dadka ugu qiimaha badnaa ee 10 mubashiriina biljanna 6 ka mid ah Uthman bin Affan, Adam bin Auf, kulligooda asigoo soo islaamiyey radia allahu canhu wa ardaah. miisaankiisa xasanaadka bay maalinta qiyaama ku imaanayaan. talxa, zubayr, kulli asigaa soo islaamiyey. waa 6 ka mid ah 6da nabiga sala allahu calayhi wasalam uu bishaareeyey jannada. codkar ayuu lahaa. bal waxaa la sheegaa waxay tahay awalu khatiibin fi lislaam, qofka ugu horeeyey meel istaagay khudbeeyey gaalada muslimiinta, yani si bareera u khudbeeyey, wuxuu ahaa abubakr radi allahu canhu. sababtoo ah kalsooni ayuu qabay inuu hadli karo, kalsooni ayuu qabay inuu wax gudbin karo, dadkana ay dhegeysanayaan, ay ku qanacayaan hadalkiisa.
dhaqamadaas oo wanaagsan waa dhaqamada hogaamiyaha wanaagsan waa dhaqamada qofka ku dayashada mudan lagu dayanayo inuu lahaado inuu lahaado astaamo dadka ku aqbalayaan maxaa kamid ah naxariis deganaansho inuu markuu la hadlaya hadalkiisa la maqli karo luqadiisa ay saxsan tahay iyo wax la mid ah bisaddexaad waxay tahay dhaqamadiisa ay kamid ahayd qalbi jilaac abubakr radiyallahu anhu qalbigiisa aad buu u jilaacsanaa Ayman baa asiga oo Umar soo boqday markuu nabiga sallallahu dhintay way u sheekeynaysaa way oonaysaa way la oynayaan nabi sallallahu ayaa wuxuu amray in Abubakar salaada uu dejiyo wuxuu leeyahay muru Abubakar falyusalli bin-nas dadka hadu jiyo gabadhiisa waxay leedahay yaa rasuulallah Abubakar ma awoodi karo ma kari karo inuu istaago booska adiga aad taagneed dadka ma dejin karo uu oynaya xishood uu xishoonayo booska nabiga minbarkiis inuu istaago umada uu dejiyo kala dambeyn aadaab ayuu lahaa radiyallahu anhu quraankan ma adkaysan karo khushuuc wuxuu fahansanaa ilaahay subhanahu wa ta'ala aayadihiisa qiimaha leh hadii lagu soo dejin lahaa buur ay dilaaci lahayd qalbiga Abubakar qalbi wuxuu ahaa aad u jilicsan bal gaalada baa dhageysan jiray gurigiis banaankiis masjid ku sameysay quraan buu akhrin jiray ma adkaysan jiray wuu ooyin jiray khushuuc aqbalitaan qof walba qofku ka naxariis badan yahay qalbigiisa ay ka jilicsan tahay waa qof walba qofku nabi sallam jannada uu bishaaray kullu hayyin layyin qof walba fudud haduu ganacsanayeen dadka si fiican u dhaqmi karo haduu dhibaato umada ku sameeyaan cafin kara umada la damqanaya u naxariisanayo iyo nabi sallam sifadaas ku tilmaamay qofka mu'minka ah waa sifada Abubakar oo lahaa radiyallahu anhu waa sifada loo baahan yahay aniga adiga inaan lahaano diyaar ma u nahay sifooyinkaasi degnaanshaha naxariista qalbi jileeca codkarnimada inaan lahaano insha Allah ta'ala maalmahan soo socda oo dhan naftii aan ku tarbiyin dhaqamadaasi wanaagsan si aan ugu dayno Abubakar radiyallahu anhu ilaahay agtiisa ajr aan ugu helno nabi sallallahu bishaaradiisana aan u galno oo ah qofka jannada iska leh waa qof fudud sahal oo loo baahan yahay inuu ahaado qalbi wanaagsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير القرون مواقفا ومثالا تبع الرسول إذا سعى أو قالا